waa la baaba'ay muqdisho qof kuma noolo hawiye waa lagu soo duulay hawiye waa baaba'ay hawiye saan kuma jiri karo caasimada saan ma haaji karto waa in arintan wax laga qabto waana la gumaado haya qaab qabiila nolol layna waa halku dhigada dawladii hore markay jirtay hadii qof qodax muddo ama uu dharagu dhinto siyaasi ilaa oday ilaa shacab ay hawiye dhihi jireen tashir jirayd qabtaan intaasan soo sheegay dhihi jireen war la qaba xiisa ma laha waxa la yaabana hadda abnigu sidii oo haajira hadda 10 mar oo ka liita guriga xataa la isku soo galaa dhaawacyada xataa laga baxa dhalinyarada naga laga dhiga xamar qarax waab iska joogto qadada iyo quraacda iyo waabayinba dilka qorsheysan ka daran dil qorsheysan horta dawladda hore ma jirin waa dhamaaday mar dhifaa qarax kuwaanu soo deeyaan ay dawladdu ku xumeynaa dhici jiray mar dhifa oo qarax dhici jiray dil qorsheysan iyo dhalinyaro la iska layna iyo oday maqaayad fadhiyo la dila iyo nabadoon la dila iyo horta waa ka nasanay 5 sano hore laakiin lacala haday wax dhacaan dawladdii hore shir jiraayada la qaban jiray oday iyo ugaas iyo siyaasi iyo shacab shirarku isdaba joog ahaan waa baaba'an qaab qabiila nolol layna taliyaha waxana laayo haayo booliiska ninka xagjar la yiraahdo waa nagu soo duulay meyd qariyo waayeen taliyaha nabad sugid waa shabaab naftu noo keenaa la dhihi jiray hadda hawiye shalay ayadoo nabad jirto laga joogi laay maanta waa la baaba'ay intay jiraan horto isla kii shalay aan Facebook ka joogi lahayn oo kunka shir jiraayad qaba jiray oo ujeedaha wiil lagu laaynaaba waxaanu dhihi jiraa hadda nabad sugid joog cid ka hadlayso iyo dadka la dilay cid ka tacsiideynayso ma jirto anigu isbarbardhigaan sameeyaa dadka marka laga joogi waayo meeshaas marka laga joogi lahayo ay joogaan meel ka daran markay tagaan wax xusuusiya wixii la dhihi jiray waa ogeeyay shir jiraayad horta joogto iska ahaa jiray hoolasha hawiye ku jiraan joogto iska ahaa jiraan abwaanay soo wada jiraan gabayo daarood waana la dhihi jiray waxba nooma reeban qaab qabiila lagu haystaa hawiye hadaanu nahay ala dhihi jiray mucaaradnimada waxa lagu saleeyaa waagii hore hawiye waa u lahayn xaqo ka maqnaato anigu 5 sano hore waligay ma arkin hawiye inta shir isku yimid dawladda Soomaaliya xaqana nooga maqan oo saami qaybsi anigu beelaha hawiye saamiga aan dawladdu kulayna uu ka hooseeya maqaamka hawiye oo la oo maskax fayooba warmurtiyeeda oo asluubaysan looga hadlayo markii shir la qabto waxa la jiray waa u daadanayna 48 saacadood ku soo bixin ninkan daarood tiibisha Allah nugu rida filada waa galayna waan soo bixinayna waa daarood ninkaanu dadkaynu la caasimaduna saan ma aha karto ala dhihi jiray horta waxa mucaarad in meesha uu waxa ku sheegay mucaaradnimada waxa la yiraahdaa anagoo reehebala xaqana naga maqan saamiga waa ka hooseeya intii aan xaq u lahayn dawladda waxaan ka codsanaynaa in il gooni noo fiirso kaas waa mucaarad oo beesha xaq ka maqanta laakiin shir aan talaqto waxa la dhihi jiray taliyaha booliiska iyo biixiyo 70 jir iyo farmaajo mareexaan waxay noo reebtaan filada ka soo baxan ninkan saas oo cada horta la dhihi jiray beesha hawiye waa kacdoon waa la baabiyaa la dhihi jiray walaalayaal wada xamar waxa ka socda ma aragtaan xalay meeqa dhalinyarada la dilay ma taqaanay xaladan maanta qaraxa dhacay qarax waa iska joogto meeqa oday dhaqameeda hadda la dilay 9 kan bilo dawladda aanu jirto maalin aan oday la dilin ma jiro ilaahay idinku dhaariya 5 sano hore oday dhaqameed la iska dilaa waa yaray hadduu jira xataa sanad ah la dili jiray hadda isbuuc kasto oday la dilaa si gaar ah horta odayaalaha habirgidiri xawaalo jufa laga dhigo maadaama ay dagaalka shaab hormuudka yihiin nag aan laga sii maalin aan nabadoon la soo duugin ma jirto xarba marka hawiye shalay lagu soo duulay ayagoo nabad haysto oo macal nabad sugid iyo military iyo xeelka ugu badan haayo qaab qabiil dawladda ku mucaaradi jiray maanta waa la dhamaaday may hadlaan ayagu isla hadlaan intay hadlaan may ayagu isla hadlaan may isaxaan haday rabaan magaalooyinka ay degaan bando ha saaraan abnigooda may sugaan maalin aan 5 dhalinyaro ama 5 oday la dilin hadda ma jirto qarax noorta warkiisa ka tag fashaxaarka hadda lagu jiro waligay ma arkin cid ka hadlaysana male hawiye shalay malaayiinta dollar oo imaaraadkii Kenya ay dhiibi jireen inta ku shiro warmurteed ka soo saari jir meel jira ma qaan inta waxa dheer Soomaali nacbayaasha wadamada dadka Soomaaliya ugu xun oo caad qaatayaasha adeegsan karaan raadsadaan wixii wareeri jiray oo waxaad ogeedana shir qaba jiro dumarka soo aroori jiray jaajuusiintan hadda filada joogto oo dad Soomaaliya in nabad noqoto rabin lacag ka soo qaatay ahayna da ogtiin hadii kale adduunka qofka dadkiisa iyo dalkiisa u xun oo asaga wuxuu ka maqan yahay caad qaataha bis la adeegsan karaa qof qable oo miisaan leh oo dhiig dameer ku jiro shisheeye ma adeegsado
wixii oo lacag xamar lagu cuni jiro shirarka lagu qaban jiray iyadoo dadku baahan yihiin waxa dhiibi jiray dad Soomaali inay degtaan waxa kale oo soo dhageysta Muuse Suudi aad u yaabay waxa ka dhacay meeshaas ilaan damal jadiid waxay ku fikireen dadka degmooyinka iyo gobolada iyo tuulooyinka iyo baadiyaha degan oo dhan in magaalooyinka waaweyn la keeno teendhooyin loo dhiso oo macaawino beesha caalamka looga qaato Muuse Suudi ka hadlay hay'adda masiibooyinku dadkii dad u soo raray oo wakiilataba dadkii waa la soo raray horta beledweynaha waxaan ku arkoon la yaabay kaamka teedaan waa magaalo hoos tagta Maxaas magaalo weyn oo degmo noqon rabta laakiin wali degmo noqon oo Maxaas hoos tagta waa dad laga soo aruuriyaa UN ka meesha degan iyo beledweynaha la soo dejiyay ayaa hor waa yaabanaa waxa isir goorbo dad ama soo dhaawacmay ama dhib dagaal ka soo gaaray marka waxa lagu leeyahay kaamka ceel jaalan beledweyne ku arkay kaamka teedaan ilaan si lamida sida xawaadlaha abgaalkii oo dhan inta la soo raabo garas baalay suuq xoolaha banaankeeda bacal looga dhis Muuse Suudi diiday oo ka hadlay halka kuwan xawaadla ay ka aamusin dadkooda la soo raabo dadkii marka baadiyaha deganay xasan sheekh wuxuu rahaa la soo raro teendhooyin loo dhiso sawiraha laga qaado beesha caalamka budget uga qaadanayna Muuse wuxuu leeyahay baadiyi wax naga jira malaha dadka waa soo rarteen maxaa u soo rarteen oo taasna waa mid in Soomaalidu isu weydiisan la rabo kaama ma la sameeyay ka soo bilow abgaalku meesha ugu dambayso iyo xawaalaha sidoo kale dadkii beledweyne iyo xamar la iskugu keenay banaankeeda teendhooyin looga dhisay gaaladii iyo carabtii waxa la dhahaa gargaarkaas marka kun qoys haday meesha degan tahay 100 qoys wax la siinaa 900 oo qoysna wuxuuda waa la qaadanaa wadanka dadkaas qabsaday dadkii marka shalay qaabka qabiilaysan dawladda ku mucaaradayo daarood inuu soo duulay noo sheegayo maanta dadkii baadiyaha xataa waa la soo raray buuca loo dhisay Muuse Suudi yala xooba waa ka sheegayo anigana horaaba beledweyne waxaan ugu arkay kaamka teedaan kaam la loo beledweyne ku yaalo mar daba gilimbo dadka Soomaaliyeed qaxootiga laga dhigo haya nimankii shalay hoolalka lacag ku bixi jiro hawiyaha abaabul jiray oo dadka Soomaaliya nacab oo reer galbeedka iyo carabtii ay soo dirsadeen isla hadana dadkii barakiciyo haya nimanka damal jadiid waa niman oo la yaabay oo jaajuusin oo laba kaarayaal oo dad iyo deegaan ayna ka maqneen dadkii baadiyaha jira la soo raro haya si lamada sidii shalay hawiya u abaabul jireen oo kala hada lacag la siinay dadka soo raraan oo lagu tuugsado xaaladda markii meesha si dalka maro haysa cidii indhaha ka qabsanay cidii kale ay u taala lacagii aad shalay shirar ku qabanayeen iyo xoogii aad shalay aad beenta ugu dhaaranayseen dawladda wadanka amni ka dhigto ciidamo u sameysay war hadda dadkan la laayna isla dadkiina hawiya waa shalay u doodayseen dhalinyarada hadda 20 ka shalay Muqdisho lagu dilay hal hawiya ka koreeya kuma jiro shalay hawiya nabadoo dhiigiisu baryaad u doodayseen maantana hawiya baabaayo maalinba 20 dilaad u doodi laadiin qabyaaladu yeen idan laayna hawiyo qabyaaladu adinka idan laaynaysa qabyaaladu dadka kale waxba kama dhibtay qofka qabyaaladiista wax u dhimtaa adaa naftaada qayaanaysa adiga qabyaaladaas saa waxa lay ee qabyaaladay u leedahay isla adiga baabaysa yaa la qaxiyad hawiya dhalinyaradooda yaa la laaya hawiya odayaashooda yaa la laaya hawiya yaa qabyaalad ku hadli jiray hawiya yaa imaaraad iyo Kenya Ismaaciil Umar Geli lacag soo qaadi jiray siyaasiyiin hawiya yaa abaabul jireen shacabka hawiya ay bar jireen qabyaalada hadda qabaylada inta baadiyaha laga soo raro bacaha loo dhiso magaalooyinka la keenayay hawiya dhalinyarada la dilayeen hawiya odayaashu yihiin hawiya meesha abni darada ay tahay hawiya war hawiyahana barteen oo nooga sheekeynaysan wakaas haduu faa'iido leeyahay maanta dadkeena baca magaalada looga dhiso Muuse Suudi sheegayo Muuse qofka weyn hawiya ma jiro waa maya waa ninka kaliya oo hadli kara wallahi xataa wana nacaska ahayn marka dadka la fiiriyo inta kale waaba duyuusin dadka xasan baco magaalada uga dhisay si ay u tuugsadaan dhalinyaradii odayaaliina xabadba lama reebin qaraxna waa iska joogto shalay marka hadii nin dhulmaanto booliska joogay farmaajo madaxweynaha Mareexaan in reer Xasan nabad sugida idan laay jireen war maanta cid idan laayni oo idin soo rarayso xasan sheekh hawiya Soomaal iyo maad salaad bilaa caleeg yaa qay aan run isku sheegno